زيد ابن سعنة نيك الأورنجري عالم بوها حبر عالم يهوديت بوها نبي الدين كقات عليه الصلاة والسلام حلقي الدين كاللقو بالله من إلا عليو يدو آنا لقارين أيو ننكاس النبي فرصة بالله اكتب فرصة عين كيا صحابة النبي سقوا هريرها كالسعودان وسوق مقالة مدينة أي دحمر أيان أيو نبي حق قدم يتوك قيم دبو نبي قويسي هنقوريا كقبتي إلى نبي عنده عصادان عمر بن الخطاب سيفت قلك كساري مرقابو نيك يهودي قال الله وحيري يا محمد هداتهين بوري نمكينا عربيد قريشين إن بدن بان إلى النولين ونلا معاملون إنه حق بني آدم قاعد كقادتان مسوع لساني أنا حقي يسيبه كيدي مرقابو النبي صلى الله عليه وسلم عمر بن الخطاب سيفت الله صباحي ويقول يا رسول الله كافر كان يهودي قورتها كقوية يقول فصح مرقابو النبي يقول عمر ما يسيفت هذا قالك كوي عشبو سودوا عمرو سدا سكدون ayaan aniga isaguba kaaga baahnayn buu yidhi inaad isagana ku tidhaahdid muddadii daynka in lagu celiyo la isku ogaa maalmo ayaa ka dhimanade ha gaadho anigana aad igu tidhaahda nebi allow dee daynka dadku kugu leeyihiin dee wuxuuga iska sii laakiin cumarow sidaa kaamaan helina midibaad seef baad la soo baxdo waad ka nixisee 8 saacoo timirana waa intuu igu leeyahay sii 20na ugu dar buu yidhi waa intaad ka nixisee قالada ayaa imika dadkan zamankan dambe ka dhaadhicisay in badan diinta islaamku adduunka seef bay ku gaadhay dagaal may akhlaaq bay ku fiday diinta islaamka boqolkii 90 diinta islaamku waxay ku fiday khuluq hasan tabi'ad wanaagsan dulqaad badan taxariis badan sabir badan duca badan dadaal badan oohin badan أسباب تابو النبي رسالة دي سومده كو غارسيناي عمر بن الخطاب نيكي بو كعيي بيت المال كي بو كيناي انتي سي مركو سيب والله با تكلن ugu daray waa kana qaado oo dhaxay ninka yahuudigi war intana numalihi buu kaydi intana nabiga amar igu siiyay inaan kuugu daro waa biiro oo maxaa lagu biiriyay sababtaan kuugu biirinayna waxa weeyaan وسيفتي إن كولا صوب حين كان نحيي بنبي يقول يري وقو أبل قودين تاس وقو أبل علي مركز نيك يهودي ألابتي أردن أنتو دول كديجي بيوري عمر وزيد بن سعنة نيك الرمام مقاش مركز ما نيك عالم كيهودي ها ما نيك أباته ها نيك أبانا هاي وأظن عالمة أو دين تي هره تورانا وحكاية قانا أو تورانا ولي بلغو شيء النبي الصفات كي سيئنو إيمان أيو maxaa kugu kalifay nabi maxamed jidka dhexdeeda waliba iyadoo aanan la gaarin muddadii deynka in la kala qaato lagu ballamay ilaa deynku waqti buu leeyahay shuruud buu deynku leeyahay lagu kala qaataa aayadda quraanka ugu dheerna deynka ka waramaysa iyadoo xilligii la gaarin maxaa nabiga sidaa ugu dhibaysay buu ku yidhi sifaadkii nabiyada lagu sheegay oo dhan maxamed waan ku arkay buu yidhi ilaa laba mooyaane labadaa sifana nebi maxamed kama soo daahiri karayso ilaa la taabtaabta mooyaane sifada koobaad waxa weeyaan jaahiliintu markay xaqiisa ay ku xadgudbaan nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam jahliga loo geysanayo ee jahaladu ay xaqiisa ku xadgudbayaan dulqaad unbaa nebiga uga ziyaadee maba cadhooda buu yidhi waa sifaadka nebiyadu ay leeyihiin cadhada nebiyada iyo dulqaadkoogana marka laysku qiyaaso waxa qaaliba oo sarreeya dulqaadkoogaa sarreeya dulqaadkooga shahaadateynka iga maqal buu yidhi hortaadaan ku laqinaya ashhadu an laa ilaaha ila allah wa ashhadu anna muxamadan cabduhu warasuuluh isagoo islaamay oo cumar uu gacanta hayuu nebiga u keenay nebiga hortiisana uu ku ashaatay imikaanaku waddankanaan joogno ummad kalaa inala nool imisaan akhlaaqdeena ku bedilay ibraahim aladham allaha u naxariistay ayaa nin gaala oo ay wata ayaa u yimiday markaasaa lagu yidhi sheekhaasi waa sheekh ibraahim baa la yidhaayo waa nin caabid oo rabbaaniyo ilaahay buu ku xidhan yahayo dadka muslimiinta agtoodana qiimo weyn buu ku leeyahay ninka yahuudigii baa soo qaaday aygiisii buu soo qaaday baa la yidhi
markaabuu sheekh ibraahim aladham oo halkiisii fadhiya buu ula yimiday sheekh ibraahim ma adigaa lagu yidhahdaa markaasuu ha ibraahim baa la yidhaha ibraahim baa la yidhaha ibraahim adham ha ma adiga ahaa su-aal baan ku weydiina maad ka xanaaqi ma i weydii insha allah i weydii wuxuu adiga iyo aygayga mid ka fadli badan buu ka yidhi nin gaalo oo aan isku diin ahayn hadduu hadalkaa kugu odhan laha adiga ka warasee yeel lahay sow dagaal maha soo maha de sheekhii dhulku eegay uu fikray wuxuu yidhi kolkaan dhinto ee laysoo saara banka qiyaame haddii kitaabkayga gacanta midig layga siiyoon janno galo maalinka aygaaga anaa ka fadli badan buu ka yidhi laakiin kolkaan dhintay buu yidhi ilaahay maba qadaree haddii kitaabkayga gacanta bidix layga siiyo naar laygu tuuro aygaagaa markaa iga fadli badan buu ka yidhi uuna iskaga dhaqaaqay ninkii aygii intuu ka tegey ayuu sheekhii intuu raacay buu ku yidhi ashhadu waxaan marag kaaga dhiganaya adigana ilaahay hortiisana marag aad iga noqotaa akhlaaqda aad igula dhaqmayso waa akhlaaqdii ambiyada calayhim assalaam halkii buu ninkay ku islaamay akhlaaqda wanaagsan waa halka diinteenna islaamka ugu sarraysa weeyaan waana meeshan la doonaya muslimiintu nebiga inay kaga daydaan sal alla alay wasalam siduu nebigu reerkiisa ula dhaqmayey akhlaaq wanaagsan istawsuu biاnnisaa'i khayra khayr buu nebigu yidhi dumarkiina kula dardaarma khayr ku ogaada mar walba asiiraat ilaahay baa aqalada niigu dhex xidhay meel kale u dhaqaaqi maysa aday kuu fadhida aqalkay ku sugaysaa ubadkaagana way kuu korinaysaa adigana way ku raalli gelinaysaa iyadoo haddana hawshaa dhan qabanaysa ayaa gabadha muuminadda haddana guriga dhexdeeda ilaahay ay ku adeecaysaa markaa buu nebigu odhan jiray saxaabadiisa waxaa igu maqala rag reer madiinaha xaasaskooga inay dilaan laakiin waxaa nii sheegayaa buu nebigu yihi raggaa dumarkooga dilaaya kuwa inigu khayr badan maaha buu rasuulku yidhi kuwaase khayr male buu rasuulku yidhi kuwaase khayr ma leh dardaarankiisii u dambeeyey markuu dhimanayeyna salaaduu nebigu ummadda kala dardaarmay salaada iyo dadka maaragtaane aan milkinay ee ilaahay gacmaheenna uu soo geliyey waa haweenka baa la yidhi iyo addoommaha labadaa ayuu nebiguna kala dardaarmay xuquuqdooda in layska ilaaliyo markaa buu nebigu odhan jiray akmalu lmuuminiina iimaanan axsanuhum khuluqa wa khiyaarukum linisaa'ihim wa ana khayrukum liahli baa nebigu yidhi akmalu lmuuminiina iimaana muuminiinta kuwa iimaankooga uu dhammaystirmay waa kuwooga dabeecadda wanaagsanna buu nebigu yidhi kuwa inigu khayr badanna buu nebigu yidhi waa kuwa reerahooga u khayr badan buu rasuulku yidhi anaana reerkayga u khayr badan buu rasuulku yidhi anaa reerahayga u khayr badan 9 dumara ayaa mid walba haddii la waraysto la odhan lahaa xaasaska nebi maxamed uu xaasaskiisa teebi ugu jecel yahay haddii la yidhaahdo mid walba waxay odhanaysa nebigu anuu igu jecel yahay hadal xun ma odhan jiray nebigeenu hadday marka cadhaysiiyaan oo ka aamusi jiray bas waliba markee maalintii maaragtaane caaisha iyo xafsa fii suurati taxriim ilaahay waa ka kaga warram in tatuuba faqad saqad quluubukuma wain tadaahara calayhi faina allaha huwa mawlaahu wajibriilu wasaalixu almuuminiina waalmalaa'ikatu bacda dalika dahiir markay nebi maxamed calayh sala slam dumarkiisu ay shirqoolka u sameeyeen oo shirqoolkay sameeyeen muxuu ahaa waxay yidhaahdeen waa ka ilaahay kaga warramay suuratu alaxzaab waa markii dowladda islaamku ay dhaqaale heshay in magaalada madiina markay saxaabadu dagaal ay qaadaanba waxay la soo noqdaan khanaa'im xoolo iyo dhaqaalay la soo noqdaan markaaba haweenkii nebigu isla hadleenoo waxay idhaahdeen dee dowladda islaamku dhaqaala yeelatay haddee toole nebigu masaariif ha noo sameeyo ereyadaabay markaa isla dhex wareegeen markaasaa nebiga jibriil ku yidhi dumarkaagii way kuu shirqooleene ilaahay wuxuu ku amray inaad ka hijrooto hijra meel buu nebigu iska galay markaa keligii iska seexdaa lama hadlo cunto uma doonto ma ag jiibsado bas ilaa magaaladii madiina waxaa ku fiday war la leeyahay nebigu xaasaskiisii u wada furayba abubakr sidiiq radia allaahu canhu ayaa soo booday deedna markaasuu u yimid inantiisa caaisha radia allaahu canha markaasuu ku yidhi aabba ii fadhiisa su'aal baan rabaa inaan ku weydiiye oo su-aashu maxay tahay bay ku tihi aabbo nebigu muu ku furay
ما يمفرن بالدم بات كل عدين ها ومحاني قد عي ده وحكى لما أورني النبي ولي أمام الشيخ نسجى لكن أنا كنحد يدي بوحان السنة النبي قال الله بندقوا هلا ويديو هلا يرادو دولة الإسلام كل قال يا لا النبي قبيل يا مصاريف النسيو انت ما انت بها عمرنا وسعود حفص وتجي حفصنا ويدي عمر سيدي سلك بيكتري مركا لأن مركز النبي صلى الله عليه وسلم آياتهن لليه هاي كلا دور الشدع دمر كالنبي محمد إلهي وكلها اللي لليه هاي قل يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن ترن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأصرحكن صراحا جميلا وإن كنتن ترن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما آياتها كلا دور بيد الشدع أي نبي قلنا مركا كسو دقي يقول ليه هاي وحي آياته كسو عدان وضمر كي النبي عليه الصلاة والسلام حاسس كي النبي كسو عدان يقول ليه هاي إلهي الرسول كيسية الجنة أردنعا إيا الدوية دي الزينة دي أردنعا كلا دور تبا لقو يدي لأن مركا النبي وحو كبل أبي حاسس كيسة تيو وجع لابو كبل أبي اختبار كاس وانا تي عائشة رضي الله عنها مركابو نبي يقول عائشة وحي بس ودقي وحي كلا صار يهديته له عائشة وحي بيقول صدقي إنكم نجوا ورمي واحد وحي قاس إنكم نجوا السعداء وأنا كلا دورشوا وأنا كل شيء يا قرار قاضي شدها كودك دقيني آبها يهوي إذا بانول الله صوت شبوكين الفرش مركابة تري وحاجة قبل هرت أي شيء آياته القرآن النبي كودو الأخرية مركابة عائشة تري ما هو يدي يا أباها يبان كلت سالك قلين بيتي نبي محمد يا إلهي جنة ماي هرت هذا كغير يا بيت النبي الله ما أنت كدم بيسنا أدوية دم قلبك كوسور دع ميسو أدوية دم أنا كويدين مايو وحنا مرك كاجا دجنا يا مرخاتي أديجا نقطة أنا وحان دورت إلهي الرسول كيسي دارت آخران دورت ما أنت وحي كدم بين أدوية دم كويدين ما يبي كتلي مركز النبي يقول هيه وكان انتهى هذا مركابات السدا أذانيك إيه ويديسي سو حاسس كاجا دمبن أو ويدين ميسي مركب النبي يقول ها مد وول بساسا نقول بندق بقولي مركابة كتير هذا أنيقا دور الشدة أذيك إلهي آخرة عن دورتي دمرك كلا هيجي شيء بيكتير هل قام معك فاهم يا مركز لا دمرك مسيرك إلهي ما كو أبوره حاد مو دائما ربط النبي جاينا كيري الله صح دبا سأقول يا ركت هيدا لأن مركب النبي صلى الله عليه وسلم يقول مي والله ما كنت دارتي يقول يكون إمو ويديان وإمي يدادان عائشة محيط دورتي حديث ويديان بالنبي يقول أنا وأنا شيء يقول نبي نحرس بدن بوها موقته وضدك إلى لنا يبوها هدي ويديان ويرادان عائشة أياي دورتي أنا والله كقرن ما يبو نبي يقول حبسه كحجسية يا رسول الله عائشة ما حي دورتي شيء عائشة أنا دورتي أنا أذانك دورتي دي يا سلام لأن النبي صلى الله عليه وسلم ده دور شدي سعير ما هذا شخص عادي معها والنبي رسوله سيد الخلق وياه خير من دب على وجه الأرض أرلدا كوركيغا قفك خير بدن إساقا ما بصومرين بالليل أقل كو جوغا نحرستا كو سودقيسا أقل كو جوغا جبريل با إيمانا عليه السلام أقل كو جوغا بركاتك إلهي با كو سعودا وحيغا كو سودقيا أقل لديسا بركاسا كل قود اختبارك ويكودا نجحين وحيد هذا إلهي رسول كيسا أيان الدور النبي إلهي مالين تاسو النبي يقول يرعى رودي مالين تين النبي يقول دمر كيسا أوكا آموسي معيت من حتى أمرك النبي يقول يرعى رودي وحو نجري يا حفصة اتق الله يا عائشة اتق الله أرى يذهب ورجري إنك لكن ما أنت أريدين استعمال الله بكلتها لكن صحابة الدجال كخيبر أيهود كوسو جبيين dadkii sabiga ahaa nabi ee la soo qaaday magaalada Madiina lagu la soo noqday gabadhii ugu quruxda badnayd baa nabiga loo doorbido nabiga la siiyay
وصفية بنت حيي أم المؤمنين رضي الله عنها مرقا بصحابته كويدا النبي الله ضدكي أن سوق هذا النبي قبل أقول قرح بدن أيان هذيك كوديني كويدا هذا قاد النبي الله للزمن قاس ضدك مركي عيدا مركي دقال قادان عيدا كي كلا قال هذا أي جبيان الرجي أي نقدان وحلا لا يوح ضاوعمي يوح بحصد أي نقدان يوح للصحر أي نقدان إيه الذي يريه الرجا يودن كان كو أبورنا سينا أضيع من أيا شريعة الإسلام واحد كده غنيمة السبي بلا سبي الفي إلا السوق هذا ضدك مركزي أو ضدك مسلمين مركزي عدالة الله قيبيه مرقا واحد دعي سنين إن لبا قفل السيو متصدح للسيو متأفر للسيو مد للسيو نبدأ أنت قياستك كل على السيو دي هذا ندقال كلا الله بحاي قال هذا والله قولي سنة يقول قولش إسلام قال الله سعطاء magaalooyin dhan oo ubadiyo dumar ku hadheen baa la soo qaaday dadkii waa weynaa si dadkaasi mas'uuliyadoodu cilla ay ugu dhicin u dayacmin ayuu markaa nabigu intee soo qaadaan saxaabadu ayaa muslimiinta loo qaybinayaa wamaa malakat aymaanukum weeyaan xaasaska sina waxaa la odhanayaa waa dumarkooga waa iska guursanayaan waa iska qabayaanoo waxay dhalaanna waa ubad muslima markaa haweenaydaas oo aad u qurux badnayd baa nabiga la siiyey markaa buu nabigu u yimid Caaisha iyo Xafsa wuxuu gabadha baa la igu deeqo la ii keenay aroos baan hay galbiye buu gabadhan ordo ii sii diyaariya markaasay u tageen markay u galeen waaba gabar qurux badan ba ka wada qurux badan ba iyakii way shaqisay Xafsa iyo Caaisha way is eegeen labadaasna dhinac bay ka wada socdeen moogtahay oo dumarka nabiga baa la yiri qaarna Caaisha iyo Xafsa dhinac u hogaaminaysay qaarka kalena Salama hogaaminaysay baa la yiri iyo Juwayriya markaas sidaa u eegeen ilaa wallahi tan haduu nabigu caawa la seexdo dib dambe inii xasuusan ma maayo markaa bay u soo hagaajiyeen way ka soo noqdeen Xafsa nabiga ka hortimid Xafsa bal ka waran yaa rasuul allah daway aroosada waa ka horeysay waan ku hagaajinay bal horowso hay maxaad aragtay yahuudiyad baan arkay bal horowso bay ku tiri hadana Caaisha ka hortimid oo careysan Caaisha waa sii hooyanaya bal ka waran waa laga horeeyay dab ka waran maxaad aragtay yahuudiyad baan arkay ordo markaa buu nabigu yiri Caaisha itaqillah waa muslimad gabadhu buu ya rasuul allah waa yahuudiyada u tag bay ku tiri markaasuu nabigu u yimid 7 cisho markaa la joogay iyadii markaa bay soo buuqdaan dumarku maalinkiina nabigu raggu la joogaa iyadana markaa dumarka ayaa u imanayo markaa waa aroosadii waa la maawelinaya Safiyata bint Huyay buu nabigu habeen u soo hoyday iyadoo ooyaysa bal sida nabigu dumarkiisa ula dhaqmayay uu kala ilaalinayay markaa buu nabigu sallallahu alayhi wasallam ku yiri maxaa ku helo la ooyaysa markaa bay tiri yaa rasuul allah dumarkaaga qaarkood markay ii yimaadaan waxay leeyihiin waa yahuudiyad waa tuma waa Caaisha iyo Xafsa radiyallahu anhum markaa buu nabigu yiri u jawaab maxaan ugu jawaabaa waa runtoodu ana naag yahuudiyad aan ahayakuna waa gabdha carbeed weeyaan markaa buu nabigu ku yiri saad ugu jawaabaysaa aniga kuu sheegay kolka yahuudiyadii ay ku yiraahdaan waxaad ku tiraahdaa nayaaday dhageysta aniga aabahay nabi buu ahaa adeerkayna nabi buu ahaa zawjkayguna waa nabi maxamed bal naagtay intaasoo nabi la xidhiideen la xidhiidh la yeelatay iska soo dhex saara ku dhabu ku yiri nabigu aabaheed waa nabi baa la yiri nabi Haaruun bay ku abtirsanaysay adeerkeedna markaa ayuu noqonayaa Muusa kaliimullah zawjkeeguna waa Muhammad alayhi salaatu wassalaam markaasay habeenkiiba markaa nabigu ku soo hoyday Safiya markaa ay Safiya maanta farxad baa ka muuqatay bal waran wala dumarkaaga sidaan maanta u galay tiri nabi allah deewaan ku xidhay tiri khalaas intii aad ii sheegtay baan ku iriyo ways eegeegaan waxaan ku iriun na maalin walba aniga yahuudiyad baad ila soo taagantiin oo ila timaadaan oo yahuudiyadu ma ugu haysaane aniga aabahay horta ma taqaanaan waa Haaruun baa ku abtirsada anigu waa nabi adeerkayna waa Muusa kaliimullah waa nabi zawjkayguna waa Muhammad waa nabi waan ogahay ninka nabi inuu ni qabo laakiin bal naagta nabi ku abtirsateen aniga ahayn ku soo sheegay bay halka soo dhiga waxay tiri maalintiiba ugu dambeysay dumarkii nabi maxamed oo ku hadal qaadayo inay yiraahdaan yahuudiyad
خلق ذا إنك أنا أخلاق ذا الله نسيه ساسو نبي وحاسس كيس ولما عملونا وكلا إلى لنا في بعض كتب وحا كتب لك تو كلا نبي قال سيه مركاسا ويوسو قال يمدو مركي النبي مركاسي أركن قروح ده جمال كيغا مركاسي تني النبي مركا الله سلام أيو حال لغو سلام اللغة العربية أنه ما أقانا بيكوتري مركاسي كويدا دين مركو النبي كوسو قال هبين كادوا عروس وكوسو هيدو النبي حال لغو سلام يا رسول الله أعوذ بالله منك يا رسول الله إلهي ما كان مغان قالي مركز لقد عدت عظيما بالنبي يقول إلهي وينابا دقا مغان قشي مربح هذا إلهي قام مغان قشي أنيق حاسين نغوني ميسيدي أرضو ضدك نوتك بالنبي يقول وسكسي دايتانا مركز أبو النبي يقول إدو مركز سيدا إيه قلن بل إيه عاوة مدى قال لمن معرون كفتن بنا عليه الصلاة والسلام إله وأخلاق ذينك نصيب إخواني وحن كودا حتى تربية أولاد النبي صدو تربية ديناي خطبة منبر سوق تاجن بو أرك النبي حسن الحسين ويا عيو سوق المسجد وكذا داعي منبر النبي لبدو دي بصوحا باري محراب كو النبي لي مدي منبر كدو شيدي وعر لبدا مركان أرك مجوج كرب وده هيلا يا ابن أبي إله الله بدا وان جعلها عدة جعلاتنا جعلوا عدة لبدا نعذن إله ونعب النبي يقول لبدو النبي صدا وجعل أمديسا ومدني محيو قبل قدي ما تقانان لبدي بولد لي حسين قورتا لغا غويي حسن الصنبا لغو دله صن محبتي اهل البيت كنا شيعه وات الله ويعت بغضي اهل البيت كاي نعبايين خوارجين تنا واكو دين تسد الليبك اوغا بخا قاسده واكو اوغا بخاي وعلي يقويسكيس شيعنا علي محبتي سيكو قالودي خوارجين تنا نعيبك علي أهل البيت كأي نعبيين أيكو قالوا بين دقدك قبحين لبداس النبي يقول ما جوجي كرمر كان أركي إلهو نيجي جعل هذا نجعلو نيكي نعنا إلهو نع صلاة يسوق تكنا يهدوه ما ده حسين والنبي قد أمرك كفولو نبي يقول سجود أمبو دريسين يا ليل وصلناها مركو النبي يقول تكنا حسين نبرك النبي يقول مسكدول فدني وكو عياري هنا النبي يقول حسين وعيار سينا يا حق قلبك أنا نبي أيوك كحرين ياهي إلهي بك كحرين ياهي قولون كذا حابس من الأقرع نرمية أيا نبي قوي من الدويل يا رسول الله أوبتك ما عيالك ما دون كتا ها وان دون كنا بيقولوا أوبت كيني والله أنو تبون ويل باندلو ولي منك ما دون كم بيقولي بركة بيقولي ده محان كون سمين هدي قلبك إلهي الرحمة هذا وكساري محان كون سمايا هدي إلهي قلبك أو نحريستي وكساري maxaan kuu sameeyaa buu nebigu yidhi man laa yarxam laa yurxam ninka aanan naxariisan buu nebigu yidhi ilaahay isagan uma naxariisto cumar binu khadaab siiradiisa waxaa ku taalla isagana nin saxaabada ka mid ah cumar u yimid oo yidhi anigana ma aragtaane dowladda islaamka waata ballaadhatee madax iga dhig oo magaalo waali iiga dhig oo magaalo ii dhiib markaasuu cumar ku yidhi radia allaahu canhu waa runtaa waa hagaag waad u qalantaa in magaalo lagu dhiibo لكن نوت كات كل شغلة تجي سبراك وديارنا سواح ده يوصل الله بوكيني حي مد عمر بن الخطاب وعيال كي ودلي يكو أوها لا عيار يا دنكنا يا نو إسنا ودنكنا يا مركز يا أمير المؤمنين وعيال كي هرمال دون كذا مركز ها صعوبة كي ما والله أنا والعيال كي من دم دون كم بيقولي مركز عمر كودي ورقدان كودي بي بليس علي وكقاضي وكجحجح aqalkaaga fadhiisa buu ka yidhi oo reerkaaga u naxariiso horta reerkaagii baad u naxariisan weyday ilmahaagiiye sideed ummad ugu naxariisan buu ka yidhi ninka mas-uul noqonaya waa inuu ahaadaa nin cadaalad samaynaya ninka mas-uul ummaddan u noqdo doonaya waa inuu ahaadaa nin naxariis badan ninka mas-uul noqonaya waa inuu ahaadaa nin ummadda ka fikiraya mustaqbalka ummadda ka fikiraya taasay haayeen saxaabada rasuulku iyo nebi maxamed sal alla alay slam awlaaddooda wakhti bay ku bixinayeen diintay ku tarbiyadeynayeen inaku maanta waxaa leenahay ilmihii iskuulna waa dhigtaa dugsi qur-aanna uu dhigtaa macallinka dhabtu waa hooyada iyo aabbaha hadday labada gurigooda ay ku hagaagaan dhexdiisa oo ubadkooga guriga ku tarbiyadeeyaan ilmuhu tarbiyadda aqalka uu ka soo qaato bannaanka ula soo baxaya maalin dhaweytaan sheegayey cabdulqaadir jaylaani allah u naxariistee siiradiisa waxaa ku taalla isagoo yar
agoon buu ahaayo yaraan buu aabihii kaga dhintay hooyadii baa dhaqaale intay soo siisay ku tidhi safarkaa magaalada u socda raaco orodoo cilmiga culummada ka soo baro safarkii iyo dadkii uu la socday ayaa niman tuugoo mooryaana dhexda u galay daadna markaasa waa habeen madow qof walba markaa wixii uu sahay haystay iyo lacagu haystay buu qarsanaya markaas marka tuugii horreeyay baa qabtay isagii oo waryaa yaroowe maxaad haystaa marka lacag badan buu sheegay soo saar oo u dhiibay lacag aad u badan waa maxay lacagta intan leg hooyadii baa soo siisay oo xageed la tegaysa طالب العلم baan aho magaaladan tagayo xalaqaadka masaajidda ka socdaan ku taxmaya deena waa masaariifteedii sanawaad aan cuni lahaayo hooyadii baa soo siisay oo dadku waa kuwa wuxuu ka qarqarsanay naga qarsanaye adu maxaad waxaaga ula dhumo weydood meel adag u gashan weyday wuxuu hooyadii baa igula dardaaranto igu tiri waliga been ha sheegin hadaad been low noqotaa ilaahayna uu ku nicib bini aadamkuna way ku nacayaan war been halaha xataa gaaladu ma jeceshahay ya been halaha cidna ma jeclo ظالمك عندنا ما جعله بلن باجيها ددكم ما جعله توغا ددكم ما جعله عاقل والديك ددكم ما جعله مفسد ددكم ما جعله هو يدي با igu tiri buu yiri waliga been ha sheegin hadaad been ala noqota ilaahayna uu ku nici bin aadamkuna way ku nacayaan oo ooyaniki gacantu qabtay tuuginta tuugi ugu weynaa buu u geeyay bal maal wuxuu leeyahay dhageyso oo dhageysto keena uu ooyay xad loo yeedeen baa lagu yiri tuuginta ugu weynaa wuxuu yiri haday hooyadii la mid noqon lahayd aniga hooyaday haday hooyadii la mid noqon lahayd aniguna tuug ma noqdeen buu yiri bal fiish tarbiyada waalidku ilmaha saameyn bay ku yeelataa tarbiyada waalidku mustaqbalka ubadkeen hagaajisa maanta inaku markaan aabayaasha ka sheekaynayno maxaan idhaanaa ma inaga fiicnaayeen mise ka fiicannahay bal sheegade say nooga fiicnaayeen inaka ka aqoon badan oo ka reema gaalsanay sheega way kinaga dadna ma fiicnaayeen xataa sida maanta inaku aan diinta aan u maqalay ee culimadu ay inaka inoogu dadaaleen iyo kama loogu dadaalay ma helin konton sano ka hor 30 sano ka hor saxwada maanta inaku aan haysanay iyo dacwada iyo culimada iyo maaragtaan ijtimaaciyada iyo khayrka socda iyo kuma helin inaka ka jaamacada fiican inaka ka aqoon badan inaka technology soo gaarnay maanta inaka ka aqal qurux badan inaka ka muwaasalaad fiican inaka ka ittisaalaad wanaagsan adduunka daafeega kii joogay ayaad maqal iyo muuqaal imika sida aad u daawanaysa haddadan way la socdaan baan u malin dadka adduunka jooga way dhegaysanayaan dadnimada iyo ka naga fiicnaa laakiin xagga materialka inaka ka material badan haddaad leedahay aabbayaashayo ayakoo teknolojiga inaku maanta aan haysaneen soo gaarnay iyakoo aanan soo gaadhin ayay naga dadnimo fiicnayn haddaan leenahay kuwa inaku aan dhali doono say noqon doonaan bay kula tahay kuwa aad dhali doonto sidee noqonaya kuwa anu aan dhale sidee ku damay doonaan kuwaan dhale kuwa si dhali doonaan sidee noqon doonaan bay kula tahay macallin carab jabaqu lahaa ardaydu u dhigay alifka alif ba ta ra markuu gaaray ra carab jabaqu leeyahay ra ma karo la abuda la ardaydu maxay oranayaan bal sheegade la un bay oranayaan markaas uu leeyahay aniga idhaama la dhaxada la un bay yiraahdaan say u dhaamayaan war aniga iga roonaada buu kule carab jabaqan qabaaye la dhaxada la un bay yiraahdaan maanta zamankan waa zaman adag runtii maanta aan ku dhex jirno ciyaalkeenni waxaan leenahay war bal naga roonaada maxay kaa roonaanayaan iyagu aalaadkan ay soo gaadheen waalane ee 99% fasaadkii la soo dhex geliyay soo gaadheen arba ku indhabeelay sidaas aan dhax ugu daawanay ku indhabeelay xad ilmo yar ula yaabiba
dadkii waaweynaababa maanta ayaa maskaxdoodii bedelantay oday iyo islaan aqal intay ku wada hoydeen ciyaalkiina iska seexiyeen ishaleelka ka waran isna Facebook buu xagga ula jeestay iyadna faasiq buu xagga ula jeesatay mid baa la sheegay waagiba ugu bariyay labadoodii markaasuu yidhi naa maxaad caawada ku mashquulsanayd markaa bata adiguba xaggeed ku jirta caawad meel kale maad ku jirtay waa dadkii waaweynaa halka hadday marayaan dhallinyarada markaa maxaan kala yaabaynaa kuwa maanta sida kuwa nool ee qaar ee zamankan dhallinyaradan dhalay hadday waxaa soo gaadheen ku mashquuleen ku indhabeeleen oo ku caqli beeleen kuway dhali doonaanna bal ka warrama dadnimo markii la eego dadkii hore inaga dadnamo fiicnaa waayo been ma sheegi jirin iyaku ballan ma baajin jirin qabiil wax la yidhahdana iyaku ma yaqoon gaalna iskumay dhadhajinayn gaalna iskumay dhadhajinayn innaguna maanta dad baa ku ducaysanaya mid baa beri mid xashka u socda ku yidhi waniba meeshii fiicneeda carafaad u socotaa iyo ducada igu soo dar markaas maxaan kugu soo duciyaa bal sheeg wuxuu yidhi yaakhi ciyaalkii labana dibadda u baxday laba un baa igu hadhee labadaana fiisihii baan u xereeyey inuu ilaahay u fudaydiyo iigu soo ducee buu yidhi yowma carafa ayuu leeyahay ilaahu ciyaalkayga halkaa ku gur ilaahu ninkaas ay soo faree ducada ciyaalkiisa halkaa u gee war dadnimadii mee aawe dareenkii aawe caqligii xataa cilmigii markaan ku soconi weyno sharcigii ilaahay caqligoogiina maanta muslimiinta kuma socdaan caqli dad kale ay leeyihin baan ku soconaa maanta marka dadka inaga dambeeya inaan waddo u jeexno soo maaha say u roonaadaan bal say u badbaadaan mise waan ku daawannaa alii warraba maan ku daawannaa mise waxaan qaadnaa dadaal ku saabsan sidaan innakuna nafteenna u badbaadin lahayn ubadkaan dhallayna ay u badbaadi lahaayeen ubadka ay dhalaana ay u badbaadi lahaayeen soo inaan qaadno soo maaha ummu sulaym radia allaahu canha markuu nebigu madiinata almunawara uu yimiday inankeeda anas bay nebiga u keentay tidhi yaa rasuula allah islaan maskiinadoo faqiiradaan ayaan ahay waxaan kugu soo dhoweeye ma haysto laakiin waladkan baarigaa ilaahay i siiye ha ku adeega iga qabsa bay ku tidhi way bixisay waqaf diinta ha kaa barto nebi ilaahay soo diray baa tahoo barakaysane ha ku adeega adiga maalintuu nebigu dhimanayana way dul timid yaa rasuul allah adigan iska bukee khaadimkaaga anas ma u ducaysay iyo ku tidhi markaa buu nebigu waan u ducey nebi allow markaasuu nebigu ugu duceeyey 3 shay ilaahu xoolihiisana barakee buu yidhi cimrigiisana barakee awlaaddiisana barakee anas binu maalik wuxuu noqday saxaabada ninka ugu cimri dheeraa ugu dambeeyey dhintay buu noqday baa la yidhi waxaa kaluu noqday meesha uu joogo muslimiinta ku nool ninka ugu xoolo badan buu noqday waxaa kaluu yidhi 100 anigu aan dhalay buu yidhi godkaan ku rido waan aaso shafeec baan ku aasay 120 wiilna waan la cunteeyey buu yidhi waana ducadii nebiga buu yidhi taas ummu sulaym way fahamtay mustaqbalka inankeygu wuxuu ku hagaagi karaa waa inuu nebi maxamed uu adeego calayhi salaatu wasalaam iyo markuu nebigu xanuunkuu la dhiman doono uu la dhacayna intay u timiday tiri nebi allow khaadimkaaga ma u ducaysay u ducee nebi allow inankaygaas mustaqbalku waa taas haddaan doonayno inaan inaku hagaagno ilmaheennuna noo toosaan ilmahaan dhalnay ilmahay sii dhalaanna ay noo hagaagaan haddaan doonayno waa inaan nolosheennan aan ku noolaan wax ka bedelo weeyaan qaaradda Amerika annakoo beri jamaacada ayaa qiso cajiiba la iga sheegay gobolkan la yidhahdo Massachusetts Boston magaalada Boston ru'asaa'ul kanaa'is kaniisadaha ku yaala statekaas ayaa shir bay ku galeen magaalada Boston waxay ka shirayeen dadkan qaxootiga ee ka keenay Soomaaliya miyaa ku najaxnay oo muraadkan ka lahayn ma ka gaadhnay mise waa ku khasaarnay markaasay hadleen waxay yidhahdeen waa ku khasaarnay ile dadkan qaxootiga dhaqaalaha lagu qaadaya yaa bixiya kaniisadaha soo bixiya markay dalkaa galana kaniisadaha istiqbaalo ogow waan ku khasaarnay buu yidhi mid wuxuu yidhi waxaan ugu khasaarnay
مدارستي قرآن كيف فرين مساجد دي بيت دسين حجاب كي شعائر الإسلام بي موجيين كنيسته بين نجاي بسدين مساجد أبدلين آذان كيبا قبل والبكا بحايا شعائر الإسلام دل يردو قد كي قميص كي بي موجيين أكو خسارني كو كلا هلو يلي ما يكون ما خسارين ها برصصكم مال في عم بالسعودية ودي مال في عم سف في عم والله يستنبول واي كو أنكو أن كان يكو واوين وما سعنو كو أي قعنتا هايستين إلا الذين يين اللي ما دين الدلك كو صوت الشينا وما سعنو كو كودل كو كودل دونان وما سعنو جيل كأفراد بانو سعنا بودي كودل دون مريكان يلا بعض كو أبا كنيس مساجد أي كونك كنيسة كوني مساجد أي كنيسين كو أبا كسو علين دون بودي محي كنيسة دو الإسلام قاعدين بيمك يا إسلام قاعدين بقى لح سنة طبعا سنة سديد سنة يكو جوجي بدل ما بدك نوكا نجت تقول أنت إلهي قلنا حارستينا الضمير كي يدرين كلا هيدا الدعاء هو رأي وصبق دينا وأكون دشوا دي كلا صوياعي ليس كلامي وعبا لسنا السوق اللي ودنا دي إسلامك لبسنا كهر أنكو حشك جوجنا أيا السوبر ماركت هلك أي رجب وتدقيه نودوا أيا حلقة فجر كي أنكسوا بحنا صلادي وحنسكوي من الدنيار ودن كأودلة مكة مكرمة كودلة مكة رمكة وسروا لقى قابن قبتها أي حريين سروا القابن بابور كان ميزك بكب حيا بوب باع وضيبا يا ساسو والحسين سأنا وكالي بقول هاي عشان نجونا ما باريس بابوري مسوا مكة الرجل باريس بيتجاني مركز أقول ما هو مكة المكرمة حفظ الزاهر بنجونا مركز رشني مكود دي بدك هي مدي وماشي كسوق قلدمه مسوا دجان كدول كان مركز أقول ويدين بقى ويدي من أين من مكة مواليد مكة أنت مواليد مكة أيوة بعد مكة كل شيء يقول لي هاي بان كذي مركز مدح حقب سده وده درين لبو هاي وفكرة موقته والداعية وحول واحد كتر هذا سروال كان قابني هذا إنكم عاد مكان حلي ذا قوة ضتان أنا كدت كيجي يدل كيجو سجاش ميدي بالله سوق بيبودي شنية سجاش كي هالك رجبوتي أي مريين كله أياد إنكم ما أنت مرة سر مكاي مكة اللي بدلي كويت جاي مرجع محد كوريسن كي الرياض كل شيء اللي بدلي كي مدينة كل شيء اللي بدلي بلاد الإسلام قهر الإسلام كي كل شيء أيال اللي بدلي سدين لقو بدلي والله فكرة يا والله قوسهم مقيا هي أديك إنك ولا ما توان هرودنا ما أنت إن الهرودة كعنا الله بحيا هي مركز ودين تاني لهين نسيي وبتكنا كتر بيدينه رجعنا وين أخيارتنا عن دعوة دي ذلك الدين أن اسكت تاجنو وايو هدان دين تأجر جارنو إلهي بلم ونقع هذا وحيري يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم بإلهي كو إلهي نبي الرمية يو هذا دي جرجارتان بإلهي ودين تيدا أجرجارتان أنا قلنا واني جرجاريا قمده إننا حقا كسوغا يا بإلهي هذا إلهي الدين تيسا أجرجارنو يا نو جرجاريا ورجرجارك إلهي كعجب حيا ومحيا دي ضعيف حكى دقنت هاي هذا الدين تكرر قادام هذا الدين تإنكم كنا قنتان هذا ولاله إن المسلمين تقول نستحيسان هذا أوبت كين الدين تبرتان هذا الدين قوة دقنتان هذا الدين تكتشتان هذا الدين تدقاله نكون بحسان هذا المدارس دي مساجد دي دعوة دي خيرك أضف قيسان الدين إلهي كش قيسان إلهي بلا نو نيجر جاريا زلزال كستود عالمك فذنت كستود تمادنا ندقاجين كريم يسير لغيهنا قمدهنا أنا حق كسو يا بإلهي فتنة بصوص عتلنا الدجال مؤمن كالدجال وحبك قادم ما يوقو بركة ولا ليال وحن كسو قبقبيني النصيحة هذا إداس دقيستيال دينيد أو وناكسن وحا كفي عن شغال دينيد أو وناكسن أربعة كفي عن نبال لمرتقى هذا وحوري نمان كمان أن مرتقى هذا وين ما هاد سيهين هاي لكن نيك برينا مرتقى هذا دولا كسي ما هاد سبويلي
saad masjidka u soo camirteen waxaan ilaahay waad mahadsantihiin jazaakum allahu khayr laakiin waxa ka sii mahadsan oo aad ugu sii farxaynaa ninka ilaahay dartii u baxa ee habeenka jimcaha markaska baytulmaal intuu yimaado diinta dadaalkayga qaybta kaga aadan ka qaata waryaadahayn haddaan maanta innaku aan xaqa ka hadli weyno baadilkaa lagugu yeedhi haddaad masaajidda camiri weyno maqaayadaad camiri haddaad muslimiinta aad xoojini weydid oo muslimiinta culammada iyo ducaadda garab u noqoni weydid dadka baadilka iyo siyaasadda iyo qabyaaladda ka shaqeeya kuwaabaad heel u noqonaysaa lidaalika sidaa daraaddeed insha allah wada niyooda inaan wakhtigeenna dhaqaalahayna ilaahayna geliyey inaan diinteenna ugu gargaarno siday doontaba hanu isticmaalle yaa sidaa niyoonaya insha allah dembigeenna allaha dhaaf dembiga waalidiinteenna allaha dhaaf diinta allah inoo macaaneeyo maralkeenna allaha shaafiyo mowtaadkeenna allaha u naxariisto amniga iimaankana allah inoo ziyaadiyo dadkan waddanka nagula noole kale diinta aan nahayna ilaahay hidaayadda ha ku galladaysto abwaab alhidaaya allah u furo muslimiintana baaba towba allah inoo furo muslimiintana albaabka toobadda allah noo furo gaaladana albaabka hidaayadda allah inoo furo dadkeenna luqadeenna ku hadlaya dibadaha nagaga maqanna meesha ay joogaan allah inoogu ilaaliyo diintooda allah ku ilaaliyo caqiidada allah u ilaaliyo shareecadooda islaamka allah u ilaaliyo kuwa la bedelo ilaahay kama dhigee kuwa iyaku wax bedela allah ka dhigo nin walba oo kurbaysana kurbada halka ka haysta allah ka qaado qaar baa naga xanuunsan oo caafimaad noogu duceeya mar walba leh caafimaad sariica allah siiyo mid walba muraadkiisa soo macsilana gacanta midig allah ka siiyo istiqaamana allah ina siiyo khaatimadana allah inoo hagaajiyo cadaab alqabr iyo cadaab almaxshar iyo cadaab annaar allah inaga badbaadiyo firdows alacla allah inagu deeqo jiwaar alxabiib calayhi salatu wasalaam allah ina geeyo محمد عليه الصلاة والسلام حوض كيس الله ينقو أروريو هدي كيسنا الله ينقو دلو استقامية قبولين الله ينسيو هذا وبالله توفيق صلى الله على نبينا محمد